waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan u soo bandhigno qaybo kamid ah dadkii bulshada ay ka cawanaysay oo qaybta baarista dambiyada CID oo kaashanaysa bulshada Soomaaliyeed ay ku guuleysatay inay gacanta ku soo dhigto waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed markii ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu ka adkaaday amnigi waxa soo baxay dhalinyaro fara badan oo kaga faa'iideysanaysa duruufahaas bulshada ay ku jirto markii amnigi uu saaciday inay isku soo bixi karaan ay fagaare imaan karaan ka dhax arkay hungurigooda in dhaqanka ay dooriyaan taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan hoggaanka baarista dambiyada qaybtiisa baarista dambiyada CID waxay gacanta ku soo dhigtay 10 eedaysane oo kamid ah dadka baraha bulshada ka faafinaya dhaqan xumada oo ay kamid tahay dhaqan xumada dhaqanka qowmaluudka dadka faafiya sidoo kale dadka anshax xumada faafiya waxa soo dhan waxay sumad u yihiin dhaqan doorinta bulshada Soomaaliyeed waxaan u mahad celinaa baariyaashii howlwadeenadii ka soo shaqeeyay dabagalka kuwan qaar kood ku dhaawacmay eyrintooda ayagoo fakanaya baxsanaya ku dhaawacmay waxaan leeyahay guulka gaara kuwan kaliya ma hadda goobta waxa fadhiyo waa 10 qaybta guudna waxa ku xiran kuwan lamid ah ayaguna waa soo bandhigi doona taliska ciidanka booliiska wuxuu u digayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee isticmaasha baraha bulshada qaybaheeda kala duwan haddii ay Facebook haddii ay TikTok haddii ay YouTube haddaadna ilaalin weysay oo dhaqanka ummadda Soomaaliyeed ay ilaalin weysay annagana ku ilaalin mayno waxaad marti u noqon doontaa qolka mugdiga ah ee aan ugu talagalnay dadka dambiilayaasha ah ee dhaqanka Soomaaliyeed iyo qaybahooda kala duwan iyo ummadda dhagaraheeda horaan u tafatirnay kuwii dadka dili jiray u daahimayno kuwa dadka dhaqankooda dooriyana inaan soo qaban waa mahadsan CID iyo qaybta guud iyo qaybta baaris CID aad iyo aad u mahadsan yihiin way ka jawaabeen baahidii ummadda Soomaaliyeed waxaan nooga daran waxaan weydiiyay maanta midkood inuu iiga jawaabo yaa ogolaan iri walaashiisa inuu meel intuu soo istaajiyo aan weydiino walaasha saa u jeceshay xaajiga inuu haweenka ku isticmaalo kulligood waa diiday in walaashooda la weydiiyo waxaan rabaa inay gabar Soomaaliyeed weydiiyaan inay meel soo istaajiyaan ka yeeli mayno waa daba taaganahay kuwa kalena waa soo qabanaynaa kuwaana hadda si dhaqsi ah maxkamad loo horgeynaa xukun ugu dhici doona insha Allah maxkamadda awood u laana xukumi doonta waxaan uga digaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed isticmaasha baraha bulshada Facebook qaybta baaris dambiyada waxay yeelatay waaxda cyber crime-ka waaxdaas ama waaxda la dagaalanka dambiyada ka dhaca aaladaha danabaysan oo muhiim u ah nolosha bulshada Soomaaliyeed haddaad ogol dhuuma jirta klibkaaga lama haydii jirta kaama rabno klibka ma rabno annaga dul fadhina indhahayna meel walba qabanaya xilliga rabtaan ku imaan doona insha Allah dambi kastana goobta ku dhacay ugu tagi doona ciidanka booliiska Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku foogan inay dhaqanka noocan faafiyaan waa idinkaga diga kuwa hadda u caaban kuwa ku jira talaaban ka qaadayna kuwa hadda u caaban waxaan leeyahay dhaqamada noocan ma aha mid booliiska Soomaaliyeed ogolaanay ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ma ogolaan doonaan dhaqamada noocan qaar kood sulwaalkay dadka jidka ugu siibaayeen qaar gabdhaha Soomaaliyeed ee cawradooda ku soo bandhigayeen qaar ayaga sidii dumar u dhaqmaayay waxaasna ma wax dhaqanka Soomaaliyeed ku haboon waxaan kala rabaa inaan halkan fariin ugu diro dadka milkiilayaasha hoteelada oo si dadban u saacida dhaqan xumada hotel alaala hotelku ku yaala magaalada Muqdisho ee YouTubers inay bulshada isugu keenaan dhaqan xumo ku tabinaya lagu arko talaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doona insha Allah mana sii shaqeyn doono hotelka noocaas ah sidoo kale ma yeeli doono goob xalfad lagu dhigto ama xarun tiyaatar loo diyaariyay in dhaqan xumo laga soo bandhigo ciidanka booliiska Soomaaliyeed talaabo ka qaadi doonaan shaqada iyo leesinkana waa laga la noqon doona insha Allah hay'adaha ku shaqada lahaan u gudbin doona sidoo kale waxaan rabaa teamka ka shaqeeya waxyaabaha noocaas ah ee social media qaybooda kala duwan ka shaqeeya waxa waajib ku ah ilaalinta dhaqanka ummadda Soomaaliyeed qofkii dhaqanka ummadda Soomaaliyeed wax ka baxsan ku dhaqman talaabo sharci waafaqsan ka qaadayna ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu gacanta ku soo dhigi doonaa cid walba dhaqanka noocan lagu arko insha Allah waana mahadsantiin